maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa xukuno kala duwan ku riday odayaal iyo siyaasiyiin ay maxkamaddu ku soo eedeysay eedo ay kamid yihiin kicin dadweyne aflagaada kana madaxda ilaamaha ammaanka dowladda Puntland. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abuukar Cabdinuur Jaamac ayaana ku dhawaaqay xukunka maxkamadda. maanta taariikhdu tahay 5tii bishii koowaad 2020 maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay soo gabagabaysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha shanta ah ee maxkamadda hor taagan. maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraanta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha markay hubaysay qareennada muwakkilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda maxkamadduna dhageysatay jawaabtooda. maxkamaddu markay hubisay dhinacyada inaysan ka tirsaneen xisbiyo dhinaca eedaysanayaasha inaysan ka tirsaneen xisbi diiwaan gashan oo la aqoonsan yahay haystana shahaado loogu ogolaado inuu xisbi yahay markay hubisay inaysan ka tirsaneen xubno ogolaansho u haysta inay soo jeedin karaan fikirro ama hadallo muhiim ah oo sharciga waafaqsan. sidaa darteed maxkamaddu waxa uu cadaatay Cawad Ceel Maxamed Faarax 70 jira in lagu helay been abuur warar been abuur si waafaqsan qodobka 328 oo ka mid yahay been abuur madaxda dawladda madaxda sarsare ee dawladda iyo kelmado ah in shacabka la gatay hantidina la gatay taasoo uusan cadeyn u hayn. Cabdulaahi Yuusuf Buuxe maxkamaddu waxay ku heshay warar been abuur ah kuwaas oo ah dalka in la gatay iyo ilhaameen ciidamada xoogga ama ciidamada dawladda ciidanka dawladda. Muuse Cali Jaamac waxa lagu helay hadal been abuur ah kaasoo ah in madaxweynihii hore ee dawladda Puntland iyo baarlamaanka hore ee dawladda Puntland inay oo ahaa xubno shaqo wanaagsan u soo qabtay dalka sharfanna inay laaluush qaateen oo ay dalka iibsadeen iyadoo aan halkaas oo saacadeed wax cadeyn uusan keenin. Maxamed Aadan Rooble maxkamaddu waxay ku heshay warar been abuur aflagaada mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda ilhaameyn madaxweynihii hore ee dawladda Puntland kicin dadweyne iyo abaabulid burburka dawladda Puntland caburin bulshada kicin in la caburiyo bulshada aflagaado laamaha ammaanka ee dawladda hanjabaad iyo u bareerid xoogag hubeysan in la keeni doono la samaysan doono. sidoo kale Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Axmed Baydhaba Axmed waxa lagu helay aflagaado mas'uuliyiinta sarsare dawladda ilhaameyn madaxweynihii hore ee dawladda kicin dadweynaha abaabulid caburin iyo bulsho kicin aflagaadeyn laamaha ammaanka ee dawladda hanjabaad iyo u bareerid xoogag hubeysan in la samaysan doono. Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhaba Axmed waxa ay waafaqsan yihiin qodobada 322 iyo 328. sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay Muuse Cali Jaamac Cabdulaahi Yuusuf Buuxe iyo Cawad Ceel Maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500. Waxay ku xukuntay $300 $500
iyo 3 bilood oo xarig maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhaba axmed si waafaqsan qodobada 322 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xariga halka qodobka 328 ay uga soo qaaday ganaax $1,000 waxa ka furan qaadasho rafcaan 30 cusub gudahood hada oo bilaa tafiiq cabdirasaaq cabdulla faamus raadiyaha telefishinka dowladda Puntland magaalada Boosaaso.